markana aan ku bilaabano dawladda Britain ayaa ku adkaysanaysa in aysan bedelayn siyaasadeeda in magangalyo doonka la geynayo Rwanda kadib markii lagu qasbay in ay joojiyaan duulimaadkii ugu horeeyay xukun daqiiqadii ugu dambeysay ay soo saartay maxkamadda xuquuqda aadanaha Yurub ayaa ku qasbay in diyaaradaasi aysan duulin siyaasadda ayaa la soo saaray kadib markii ay si weyn u kordheen tirada soo galootiga iyo magangalyo doonka ee ka soo gudbaya janalka Ingiriiska kagana imaanaya doonyo yaryar Faransiiska isku dayo lagu joojinayo ayaa si weyn u guul daraystay isku dayadaasi dawladda UK ayaa dawladda Rwanda waxa ay kala saxaatay heshiis dadkaasi lagu geynayo meel kumanyaal kilomitir ka fog dawladda Britain ayaa ku doodaysa in dhoofinta dadkaasi Rwanda la geynayo ay ka hortagayso dadka kuwa dadka tahriibiya waxayna sheegaysaa inayba horey u sii qorshaysay duulimaadkii la joojiyay kii ku xigi lahaaba kuwa ka horjeeda siyaasadana waxay sheegayaan waa arin bani aadanimada ka horjeeda beela sheego ayaa inoo haysa warbixin aan ku faahfaahinayno arintan meelna uma socdaan qorshaha Boris Johnson ee Rwanda si uu joojiyo soo galootiga ayaa la hakiyay hadda duulimaadkan ayaa lagu talagalay in lagu qaado in ka badan 100 magangalyo doon ah oo la geeyay Rwanda laakiin taasi dhici mayso caqabad sharci awgeeda diyaaradda laakii ayaa hadda dib ugu laabatay saldhigida dalka Spain dawladda ayaa arintan ka xun iyadoo ku soo beegantay maalin ay in ka badan 300 oo qof ay yimaadeen Danfur kadib markay isku dayeen inay ka gudbaan kanaalka iyagoo wata doomo yaryar safarada noocan oo kale ah ayaa lagu talagalay in siyaasadan cusub ee dawladda lagu joojiyo waxay leedahay inaad ka tagto gurigaaga oo aad tagto meel kale si aad magangelyo u hesho waa wax aanan fududeyn sugitaanka inaad si sax ah u aragto meesha aad ku dambeyn doonto markaad adigu doorato inaad UK timaado oo meel kale lagu geeyo waa wax argagax ah laakiin Rwanda arintan Britain shuraka kula ah ayaa wali ku jirta nama niyad jabin waxaa naga go'an iskaashigan waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno muhaajiriinta marka ay yimaadaan Rwanda ay tiri haddaba maxaa dhacay maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha u gooniga ah midowga Yurub oo UK heshiis la gashay ayaa leh go'aanka kama dambaysta ee arinta xuquuqda aadanaha waxay xukuntay in magangalyo doonayaashu ay la kulmi doonaan khatar dhab ah oo dhibaato aan laga soo kabsan karin ku qabsan doonta dalka Rwanda taasoo ka soo horjeeda xukunkii garsoorayaasha London kuwaas oo aan helin wax khatar oo degdeg ah laakiin xogayaha arrimaha gudaha Priti Patel ayaa ka jawaabtay waxayna tiri waxaa wax la yaabay maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha inay soo faragelisay inkastoo hore aan ugu guuleysanay maxkamadda gudaha ee UK lagama celin doono inaan sameeyno wax saxda ah iyo hirgelinta qorshayaasha lagu xakameynayo xuduudaha qarankeena u diyaar garowga duulimaadka soo socda ayaa hadda bilaabmaya dadweynaha UK ayaa ku kala qaybsan arintan Boris Johnson ayaana sheegay in laga yaabo in dawladdiisa ay aad ugu wanaagsan tahay inay bedesho sharciyada si ay u caawiso siyaasadda waxay ku saabsan tahay in la sameeyo mabda'a iyo in la sameeyo waddo lagu jabiyo qaabka ganacsiga ee dadka wax tahriibiye ee sabab darxumo aan la soo koobi karin iyo qarash aan la soo koobi karin oo ku yimaada dhaqaalaha Ingiriiska ayay tiri makicin balse ma dhiman fiiro gaar ah ayaana lagu hayaa sida garsoorayaashu u xukumi doonaan marka ay baaraan dhammaan siyaasadda ku saabsan safarada Rwanda markan waxaynu gudagalaynaa faaqidadeenu caaw ku eegayno muhaajiriintaasi la geynayo dalka Rwanda waxa barnaamijka igala qayb galaya Cabdirashiid Xaaji Maxamed oo studio ila joogo sharci yaqaan ah Yaasir Umar Baafo oo qabiir dalxiiska ah oo magaalada Kigali halka dadka la geynayo qadka jir Yaasir iyo Cabdirashiid ba soo dhawaada Cabdirashiid ayaan ku hormaraya London la jooga maxkamadda xuquuqul insaanka ee EU way joojisay duulimaadkii Rwanda ee dadka qaxootiga marka sharciyan awood UK uu ka baxay midowga Yurub sidee taas ay wax ugu dhaceen horta kala saxno maxkamadda horta waa maxkamad Yurub ah EU kuma shaqo laha yani EU da ka hor baa la sameeyay oo 1951kii baa la bilaabay markii dagaalka labaad adduunka uu dhamaaday in xuquuqda insaanka Yurub macnaha Yurub dadka joogo xaqooda la ilaaliyo shaqadeedu ugu muhiimsan waxa weeyaan dadka ku nool Yurub ee ka tirsan 46 wadan ee saxiixay markii ay ka qoostaan wadamada ay joogaan ayna arkaan in xuquuqul insaankoodii lagu xadgudbay maxkamadihii wadamada ay joogaan waxba u qaban kari waayaan dan iyada ay resource u tagaan oo markaas xukun u doontaan taas marka shaqadu ugu muhiimsan waa taas aad baan u garanay waxaan filayaa in markan Yaasir aadina Yaasir magaalada Kigali aad joogtaa waana halka dadkan la geynayo sidee dadweynaha wadanka iyo u arkaan dadkan loo soo wado oo la keenayo
cismaan waa mahadsan tahay waan salaam adiga bahda dhammaan BBC arrintan Rwanda runtii waxa ay u diyaar garowday guud ahaan sida la socotaan Rwanda waa dal dhinac walba u diyaarsan horumar fiican ka gaaray dhanka dawlad wanaagga iyo xuquuqul insaanka iyo amniga iyo dhan walba marka dabcan dadka Rwanda iyo dawladda isku duubanba hal ilaa ay wax ku arkaan oo ah dadkaas inay yimaadaan maadaama dawladdoodii ay go'aan qaadatay heshiis ay u soo gashay dadku iyo dawladduna waxay diyaar u yihiin inay dadkaasi soo dhaweeyaan wax allaal wixii uga aadan ama heshiiskii dawladda Ingiriiska iyo Rwanda dhexmaray in sidee tahay in loo fuliyo marka Rwanda iyo dawladda iyo shacabkaba diyaar ayay u yihiin runtii waan gartay waa kugu soo noqonaya Yaasir oo qabiir dalxiiska ah hay'adda Bafo Bravo la yiraahdo madax ka yahay wadankan si fiican ayuu ula socday xaaladiisa arrintii maxkamadda midowga Yurub waan fahnay bal dawladdan UK talaabada ay qaaday sharciyan bal Cabdirashiid iyadana waa sidee horta sharcigu waa qaybo badan tan waa policy dawladdu ay sameysay weeyo ma aha sharci baarlamaanka ka yimid laakiin dawladda qudhigoodu waa dawlad la doortay weeyaan marka policygeedu wuu soconaya ilaa had sharci ahaanteeda laba mar ayaa la isku dayay intaan la aadin maxkamadda Yurub in high court-kii jimcihii la soo dhaafay 10 bisha ayaa la tagay maxkamadaasi waxba way ka qaban weyday waxa jira dawladdu diyaaraddu way kici kartaa kadib Supreme Court ayaa la aaday haddana macnaha 13 maalintii Monday ahayd iyadna waxay ku raacday maxkamaddii hore oo waxa jira diyaaraddu way kici kartaa kadib ayaa marka European-ka la aaday marka sharci ahaan waa policy horta dawladdu ay macnaha fulinayso laakiin sharci ahaanta arrinkan waxa lagaga hadli doonaa maxkamad balansan July dhexdeeda oo waxay dhahaan judicial review oo maxkamadda ay go'aamin doonto sharci ahaanta arrinkan iyadoo muddo dheer la dhageysan doono qareenada dawladda iyo qareenada kale ee claimantga ama dadka dawladda ka soo horjeedo marka taas ayaa sharci ahaan kala go'aamin doonto laakiin waqtigan xaadirka waa policy marka waan fahnay waa policy dawladdan awood ay u leedahay Yaasir qaxootiga wadankiina Rwanda waa uu soo maray dagaal sokeeye dib uu soo arkay dadkiisa qaxooti ay noqdeen qaxooti kale badanna wadanka waa ay joogaan marka sidee marka wadankaasi qaxootiga markuu qofka yimaado maxaa hor yaal ma shaqaysan karaa muxuu qabsan karaa waa sidee nolosha Cusmaan waa mahadsan tahay dawladda Rwanda runtii diyaargarow fiican ayay u diyaargarowday dadkana loolama dhaqmi doono dad qaxooti xuduud ka soo galay oo kale طبعا waxaa xadidi doona protocolka ama habmaamuuska ay ku heshiiyeen dawladda Ingiriiska laakiin waa dad loo diyaariyay inay degaan guryo ku haboon apartments inay degaan طبعا xuquuq badanna way ku yeelan doonaan dalka ma noqon doona dad xuduud laga soo qabtay ama xera qaxooti inta la geliyay ma noqon doonaan tacaamulkooda iyo nidaamkooda wuxuu noqon doona wax ka duwan طبعا diyaargarow fiican ayaa runtii ka jira Rwanda sidaan hore kugu sheegaba deegaana loo diyaariyay u khaas ama u gaar ah kuwaas ayayna degi doonaan arinta shaqada ah طبعا qofka hadii mar magaca qaxooti uu wato waxaan isleeyahay waxa u saamixi doona qofka inuu heli karo waxyaabo basic ama asaasiga waxyaabo asaasiga inuu heli karo ama inuu shaqaysan karo ama inuu wax un baran karo marka Rwandana runtii waxay ku jirtaa marxalad ah xuquuqul insaanka inay aad ma aragtay runtii uga taxadarto dabcan waana dareemi kartaa dawladda Ingiriiska waxay ku dooratay intaasoo wadano Afrika ka kooban Rwanda waxay ku dooratay waa dareemi kartaa wax badan ayaa u diyaarsan Rwanda oo saamaxaya inuu qofka ku helo xuquuq badan runtii intuu qaxooti ku aan la xagga maaragtay aad baa u mahadsan tahay Yaasir Cabdirashiid sharcigi iyo wadankan iyo siduu yahay qaxootiga iyo waxyaabaha ay ku raadiyaan magangalyada wax badan aad la socotaa marka maxaa u furan hay'adahan abiilka qaadanaya raba inay ka hortagaan iyo qofka hadda xerada ku jira diyaaradan ay sugayso kale dadkaasi maxaa u furan horta sharciga lagu doodayo waa wax badan dawladda Ingiriisku heshiisyo badan oo caalami ah ama international waxbay saxiixday waxa kamid ah sanadkii 1951 qaxootiga go'aankeeda ahaa UN Convention bay dhahaan waxa kale oo kamid ah kan European Convention of Human Rights isagana la yiraahdo marka waxay leeyihiin dadkan la celinayo number 1 horta waxay ka hor imaanaysaa sharciyadii ay dawladdan saxiixday inay fulin doonto oo xuquuqda bini'aadamka dadkan jooga ay ilaalin doonaan talabaad ay ku doodayaan waxa ugu muhiimsan dad badan waxay dispute ka keenayaan ama muran ka keenayaan wadanka loo wado xuquuqul insaankiisu sidee buu yahay hadda saaxiibkay war fiican buu ka dhiibay laakiin dad badan wuxuu ku doodaya inuu yahay wadan dictatorial oo dad macnaha nin iska haysto oo xuquuqdii saxda aysan heli karin marka kulli waxaa la ogaan doonaa challenge-ga ugu muhiimsan maxkamadda judicial review-ga ay dhici doonto July waxaa lagu qaadi doonaa dhammaan policy-go dhan ayaa legalitygiisa ama sharciyadiisa
laysla meel dhigi doonaa iyadoo labada looyarba la dhegeysan doono markaas ayay maxkamaddu go'aamin doontaa laakiin weli kuma ekaan doonto labada dhinacba kii laga raayo wuxuu leeyahay waxaan qaadan doonaa maxkamadda abiilka sare oo Supreme Court-ka ah haddii dowladdu weli laga sii raayo waxay leedahay anagu markaas waxay xaq u sii leeyihiin weli inay markaas intay baarlamaanka ku noqdaan ayba legislative ka tagaano macnaha maxkamadda baarlamaanka soo mirsiyaan dan maxkamad hor istaagi karta aysan jirin marka oo baarlamaanka sharciyan marka waa isdaba soconaysaa baasha lama kala harayo lama kala harayo sida iyo muuqato aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid Yaasir adoo noo soo koobaya qaxooti hore waddanka joogay maxay kuwaasi noloshooda siday tahay marka dadkii hore u joogay waddanka qaxootiga joogay waa qaxooti asagan si sharci ku yimid oo diyaarad ku yimid oo laga soo kaxeeyey dalka Liibiya oo dowladda Rwanda runtii ay u fidisay marxaladda ay ku jireen marxalad ka fiican oo ay helaan skills ama xirfado inay helaan meel gooni inay degaan marka ma jirto wax caqabad weyn oo hadda taagan oo la dhihi karo Rwanda qaxootiga dhib ayaa ku haysta bilcaks waxaan aaminsanahay wax badan inay ka faa'iidi doonaan Rwanda hadduu Ilaahay aad baad u mahadsan tahay Yaasir Baafo waqtiga inta noogu eg iyo Cabdirashiid aad u mahadsan tahay oo qareen dhinaca sharciyada ah